السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي دخالي أهمل والبواد دافها الدنيا كجوكتان كسو دواتا جنال كيغا امراس سي شرف لو حلقة عصنية إن آد جنال كينا نو شير غريسو سبسكرايب نعاد سارتو آد وقود بيسو أصحاب تادا سي أي أولا سعودان برنامج دا هالكان كسو قد بين دونو برنامج كأن رمنو إنان مانتا كهدلنو وحا أي تهي maxaad ku tilmaami kartaa qofku leh calankaaga waaba dumisaye waa burburisaye maxaad ka xiranaysaa oo maxaad u wadataa qofkaasi ma lagu tilmaami karaa qof qalbiga iyo maskaxda ka dhintay aniga ra'yi ahaantayda haa marka waxaan rabaa inaan barnaamijkaas ka hadlo dad badan oo aniga arkay oo asxaabta aan isla nahay oo badanaa markaan calanka Soomaaliya ku soo labisto oo ileh calankan waaba kii aad burburisay maxaad u wadataa ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri subhanahu wa ta'ala la taqnadu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jamii'a naxariista ilaahay ha ka quusanina إن الله يغفر الذنوب وحو دافا دنبيدا جميعا جميعا سو شلي ودن كيني دادكي أناقا أوياشين أها يا أبياشين بربوريين هدي أي بربوريين بربوركي دادكي دلان يردي أها مليبانياشي لغو ليباني وقتياس جري 30 جرada 20 jirada dalkii burburkii dhinaciisa ka sii waday maysan u fakirin bari markay guursan ilmaha ay dhali doonaan meesha ay wax ku bari lahaayeen nolol wanaagsan inay sii lahaayeen waxa dhan maysan barin kii 30 jirka ahaa ee maalintaas qoriga qaatay waxa waaye wuxuu caruurtiisa baray in dalka qori xoog wax loogu qabsan karo oo caruurtiisa baray 91dii dadka dalka burburiyay hadii xaqiiqda laga hadlo waa reer miigi magaalada ku soo qaxay hantidii ummadda Soomaaliyeed dhacay marka nin ku leh calankaaga waad burburisay maxaad maanta ka wadataa ninkaasi waa nin qabyaaladii ay ku dambayso waa nin maskaxda ka dhintay waa nin 1000 sano hadda dhimanay aadan maskaxdiisa wanaaga aadan geli karin dad badan baa ku leh calankan dib uma soo noqonayo haddii maskaxdaada aad dib u baartid shalay meesha joogtid maanta ma joogtid maanta meesha aad joogtidna berito ma joogtid shalay haddaa noolayd maanta geeri shalay haddaa dhibaato ku jirtay maanta laga yaabo in Allah uu kuugu bedelo raxmad iyo naxariis marka inaad ka quusatid maaha calankaaga Soomaaliyeed in lagu dhaho calankan shalaa burburisay maxaa maanta ka wadataa qofka saas waa useless waa qabiiliste waa nin aan dan iyo xaajo aan ka lahayn Soomaaliya waa nin qurbaha shilimaad yar ku arkay isbiday inuu qurbaha leeyahay adeero meeshan waa timid haddii aad timidna dad baa dhistay dad baa hagaagsaday dad baa guryahan quruxda badan u jeedo samaystay ku fakar when you go back to your country you have to build rebuild inaad samaysid oo dalka dib u dhis aad ku samaysid laakiin haddii calankaaga aad tiraahdo calankan shalan burburiyay maanta dib uma soo noqonayo taasi waa mucaaradka qaarkii ee aaminsan in qabiil wax lagu xalin karo
kuwaasaa la mid tahay. marka waxaasna wax wanaagsan ma aha, waa wax laga fiican yahay. ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay meel walbo aad joogtaan in aad calankiina kor u qaadaan. calankaaga waa sumadaada, wejigaaga waa baasaboor, calankaagana waa baasaboorkaaga. Soomaali baa tahay, luqadaadu waa Soomaali, wadankaagu waa Soomaaliya. wadan saas isku leh maba jiro ya. marka waxaan leeyahay kan waa lama huraan, calankaaga buluuga waa lama huraan. dad baa maanta kugu haysta, dad baa maanta na kala qaybiyey oo laba cad noo kala dhigay. dadka maanta 70 jirada ay taagan oo ku fakaraya in ay dalkii maamul goboleedyo u kala qaybiyaan, taasi waa wax laga xun yahay, wax hagaagsanna ma ahan. ha laga joogo. Soomaaliya Soomaali baa dalkeena wuu hagaagay, wuu toosay. dhalinyarada hadda soo koraysa niyada laga jabinin, dalka waa toosay. nin walba qurbo ku noolow, waxaa waaye dib baad u noqonaysaa. ha ku tashanin dalkan inuu dalkaaga yahay. waxaad ka timid dhul udgoon oo qurux badan. marka every time and any time you have to support your flag. kan waa midka aad wax ku tahay. calanka midabada noocyada aad 5 xab u kala samaysateen, kaas waxba kuma tihid adeerow. runta maarata wax kuma tihid ya. ninki dood rabow, you have to come to me. we will discuss, not negotiate, discuss. marka xaqiiqda in laga hadlo aa fiican. run sheeg waa ceeb sheeg. kan oo ku faana haddoo dhulka galane waa inaan kor u qaadaa, haddoo liitane waa inaan ka dhigaa mid sareeya. marka yaana idinku sii dheerayn barnaamijkayga aan uga hadlaya calankayga Soomaaliyeed. dadka qaar ee ka hadla calanka in uu yahay mid dhumay, ma dhumine waa nool yahay. you have to know that. dad anigoo kala nool, dad anigoo kaloo jecel wadankooda nool ya. wadankeena dhibaatii barbaleema lagu soo ordo, laakiin wili qalbiga muusan dhiman, waa noolnahay. we have to come back our country and rebuild. so waxaan leeyahay walaalahayga Soomaaliyeed meel walba dunida ka joogtaan, barnaamijkayga halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. waxaan ka hadlo badanaa wacyigelintana dhalinyarada ayaan ula wadaa, uma jeedo dadka 50 jirada ah. if you are 50 jir, sit your home, fadhi ku dirka jooji, caruurtaadu abuur ganacsi iyo waxyaalo kale. waxaana leeyahay Soomaaliya ha noolaato, Soomaaliya ha israacdo, wayna israaci doontaa insha Allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.